السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي قالي كسو دوادا موفق اوفيشال جانل. فضلا هدي أدكو عصوبتا جانل كان سبسكرايب لايك كومنت شير وهاتهاي ان عاوة برنامج waxaan ka hadli rabnaa sports ku saabsan dood u dhaxaysa Leo Messi, Cristiano Ronaldo iyo sanadkan xidiga kooxda kubadda cagta Liverpool Van Dijk oo runtii xil ciyaareed cajiib ah qaatay. garaadka wuxuu isleeyahay xidigaas sanadkan ku guuligeysigiisa abaalmarinta Ballon d'Or iyo Janiska uu haysto, halka Ronaldo iyo Messi aan falanqeyn doono iyagana waxay ka qabteen xil ciyaareedkan kooxahooda iyo wadankooda. ay garaadka adiga ku horeynaya adiga ka hadlaya saddexda qofba. maantii horta Ballon d'Or dad badan oo sharaxan ciyaartooy badan oo sharaxan ilaa iyo door sodomey ka badan gaarayo marka saddexda ugu cadcadna waa Ronaldo, Messi iyo Van Dijk. Okay, hadda adam maxaa leedahay Ronaldo, Messi and Van Dijk uu qaadi karaa midkood? aniga horta waxaan qabaa inuu Messi qaadayo Messi hadduu waayo inuu qaadayo Van Dijk. Okay, kasoo qaad haddii xidiga kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Portugiiska u dhashay Cristiano Ronaldo uu qaado, maxaa is leedahay runtii jaa-isada way noqon kartaa? runtii ilama ahan inuu Ronaldo qaadi karo sababtoo marka u fiiriso fifth best markii la bixinayay labada qof ugu horeysay dhanka ciyaarta markii la fiiriyay waa Messi aniga ugu horeeyay aan kala wada waa aan ka dhaxgalo aan ka dhaxgalo fifth best player waa isla garanay waxaa qaatay xidiga kooxda kubadda cagta Barcelona ee dalkaas Argentina Leo Messi. laakiin Cristiano Ronaldo runtii ani waxaas leeyahay fikrad ahaanteeda wuu u qalmay xidiga sanadka FIFA best player iyo waliba xidiga UEFA xitaa u qalmay inkastoo laakiin UEFA inta badan kaga lahaa ninka ku guuleystay Champions League waa cadara cajiib ah ka dhigay Champions League xil ciyaareedkaas Virgil van Dijk. Okay, teeda kale Cristiano Ronaldo runtii hadda waxaan leeyahay uu ku guuleysanaa fursad uu haysto sababtoo ah Juventus xil ciyaartiisa ugu horeeyay wuxuu la qaaday koobka Serie A Italia walow Juventus sanado badan ay iska daldalanaysay haddana runtii xidigaas kaalin weyn ayuu ka qaatay sanadkaas. wuxuu kaloo u qaaday koobka Supercoppa Italia oo ka qaadeen AC Milan goolka qora ay ku qaadeen Cristiano Ronaldo uu dhaliyay runtii waxaa kale sanadkaas runtii cajiib ahayd in Cristiano Ronaldo uu ku guuleystay koobkii dhawaan UEFA ay ku soo dirtay inay booska saaxiibtinimada ku bedelaan koobka loo yaqaano UEFA Nations League. Cristiano Ronaldo runtii koobkaas wuu qaaday, wuxuu kaloo qaaday isla gool dhalintiisa markii la soo gaaro final tournament wax loo yaqaano saddex gool ayuu ka dhaliyay kooxda kubadda cagta dalka iyo Switzerland. sidaas darteedna wuxuu noqday gool dhaliyay ugu sareeyay tartankaasna wuu ku guuleystay. marka Cristiano Ronaldo sidaas ayaan u leeyahay sanadkan waa uu ku guuleystay Ballon d'Or walow daraad xan la sheegay wargeyska la Gazette Mundo Bartuf maya wargeyska soo baxa Talyaaniga ku maqlaay Tutto Sport ama ahaada Tutto Sport mo aha ama la Gazette dello Sport midko ahaadaba wargeyskaas ayaa lagu shaaciyay runtii in xidiga Cristiano Ronaldo uu aad ugu dhow yahay labada xidig kale ee Liverpool u ciyaara Virgil van Dijk iyo xidigan u ciyaara kooxda kubadda cagta Barcelona Leo Messi. laakiin adi hadda taageero waxaa tahay Leo Messi saafilay صح sidaas darteeda uu leedahay Messi uu qaadi karaa mise sida dhabta ay ka hadlaysaa sida dhabta hataa laga hadlo jaa-isadan waxaa lagu bixiyaa qof kasta wuxuu soo qabsaday iyo kooxdiisa iyo xulkiisa iyo guud ahaanba wuxuu adeeg sanadkaas qabsaday. haddaan ka hadno dhanka Lionel Messi koob ahaan wuxuu Barcelona u qaaday La Liga laba koobna waa laga qaaday sida Supercoppa Spain koobka Darey waa laga qaaday sidoo kale Champions League waa laga soo reebay inkastoo meel fiican uu gaaray. sababta aan u sababeyn karno waxay tahay inuu Messi inuu qaadi karo wuxuu qaaday koobka macnaha maxaa la dhahaa gool dhalinta koobkii UEFA Champions League wuxuu qaaday gool dhalintii La Liga iyo wuxuu qaaday dhammaan gool dhalinta shanta horyaal oo ugu weyn Europe. sidoo kale waxa u fududeyn karto Lionel Messi inuu kusoo guuleystay best FIFA player
taasoo sanadihii ugu dambeeyay qofkii FIFA best player qaado in uu qaadayay Ballon d'Or sababtoo ah FIFA best player waxaa macnaheedu tahay ciyaartooyga uu fiicnaa haddii oo qofka la siiyeen taasoo macnaheedu waxay tahay sanadkaas waxa uu fiicnaayeen laba ciyaartooy oo kala duwan run ahaantii Van Dijk asina hal ciyaarad qurux badan oo soo qaatay inuu Champions League soo qaaday inuu horyaalkii kaalinta labaad ku dhameystay in uu koobkii oo Portugal ku guuleysanaysa asigana kaalinta labaad ay ka galeen xulkiisa Netherlands runtii ciyaarad cajiib oo soo qaatay laakiin xanta suuqa ku jirto oo soo saartay jirida ugu afka weyn dalka Spain Mundo Deportivo oo naantii oo sheegaysay in oo dad ka socdo Faransiiska oo bixiyaan runtii horta barnaamijkan waxaa codeeyo saxafiyiinta iyo kabtanada xulalka ay codeeyaan marka ani ahaantii fikraanteedu waxaa ila tahay in uu Messi qaadayo sababta uu qaadayna waxay tahay in uu soo qabsatay shakhsi ahaantiisa wuxuu asiga walow aan kuu sheegay sida hore aan kuu sheegay Cristiano Ronaldo aan ka dhaxgalo Cristiano Ronaldo wuxuu qaatay asna horyaalkaasi dalka Talyaaniga wuxuu kaloo ku guuleystay UEFA Super Cup da Italia ma la isdhihi karaa Cristiano Ronaldo ku guuleystay waayo xulkiisa xitaa wuxuu la qaaday koobka UEFA Nations League fursadaas ma haysto oo waxaa xasuusanaa Cristiano Ronaldo Champions League Juventus knock out waxay ka dhalisay ilaa iyo 5 gool 5taas gool waxaa dhaliyay xidig kooxdaas Cristiano Ronaldo lambarka 7 u xirtay Juventus iyo xulka Portugiiska wuxuu ka dhaliyay 3 gool soo laabasida cajiibka ahayd ana xasuusano Atletico de Madrid halka Ajax labada kulanba uu gool ka dhaliyay inkastoo ay ka hareen gabi ahaanba tartanka UEFA Champions League waa la dhihi karaa laakiin ani ahaantii fikraanteeda Messi ay u qalmo waa tahay haddii uu Van Dijk waa asina waa la dhihi karaa haddii uu maayo Messi inuu Van Dijk qaadan karo sababtoo ah Van Dijk waxa waaye badanaa hadda danka oo Ballon d'Or waxaa lagu bixiyaa badanaa UCL qofkii qaado iyo Champions League inkastoo asiga uu yahay ciyaartooy adana daafac asi ciyaartooy ka weyn loo macnaha oo Messi ka qaadi karo oo Messi ku guuleysan karo sababtoo ah Messi wuxuu loo qaaday hadda kor hadda xasuusta 2010 Snyder asoo qaaday asoo gaaray UCL ka soo qaaday Champions League triple xiligaas ay qaatay isma dhahay marka ani Van Dijk qaadayo sababtoo ah xiisa ma yeelanayso haddii la dhaho Ballon d'Or laakiin haddii Ronaldo ama Messi midkooda qaado Ballon d'Or markaas inuu xiisa leeyahay ila tahay fikraanteedana waxay ila tahay in uu Lionel Messi laakiin waxaa jeclaan lahayd haddii oo ay Messi seegto in Van Dijk uu qaado ka taageero Lionel Messi ahaan waa tahay ana kulley waxaan ahay taageer Ronaldo inkastoo sanadkan runtii Ballon d'Or sanadkan runtii noqon doono mid mucjiso ah haddii uu ku guuleysto xidig kooxda kubadda cagta Juventus ee dalka Portugal Cristiano Ronaldo walow runtii asana wax badan uu soo qabsaday halka Lionel Messi aan runtii la xaqiri karin wax qabadkiisa waa runtii xidig aad u cajiib ah Barcelona runtii mar walba caawiya inkastoo xulkiisa inta badan uusan ku fiicneen laakiin Barcelona marka la dhaho waa xidig runtii ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta Barcelona ay haysto Van Dijk runtii xil ciyaareedkii la soo dhaafay wax goysma ah looma sameeynin taas ayaana isleeyahay way ka dhigaysaa xidig runtii asna loo saadaalin karo inuu ku guuleysto aniga waan qabaa in Messi uu qaadi karo waan qabaa in Van Dijk uu qaadi karo laakiin waxaan runtii u rajeynayaa Cristiano Ronaldo inuu qaato si uu u dhaafo xidig kooxda kubadda cagta Barcelona oo markii hore tagay ilaa iyo 4 tagay kadib Ronaldo wuxuu haystay hal kadib ka daba tagay marka Cristiano Ronaldo runtii fursad kale ayuu haystaa waa arki doonaa kulay labada insha Allah labada December ayaa lagu balansayahay in xafladaas weyn la dhigo teeda kale Georgian Club wuxuu dhahay haddii xil ciyaareedkan ya ugu fiican lagu bixinayo jaa'isada waxa iska leh Van Dijk laakiin haddii la dhaho adduunyada ya generation kan hadda jooga jiilka hadda jooga ya ugu fiican Lionel Messi oo dhahay
marka dad badan oo Van Dijk runtii waxaan isleeyahay runtii sanadkan labadaas uu ku dhex qaadi karaa waayo Modric xil ciyaareedkii la soo dhaafay runtii waxaa aad ugu qalmay Cristiano Ronaldo oo runtii wax qabad fiican soo dhigay UCL ka soo qaaday xitaa caawin ka badan Modric sameeyay laakiin Modric waxaa lagu qiimeeyay runtii dadaalkii uu ku sameeyay uu ku gaaray koobka adduunka 2018 ee dalkaas Russia ka dhacay Croatia uu gaarsiiyay final waatay garaadka kulley waa arki doonaa jaa-isadaas maalinta isniinta ah insha Allah waa arki doonaa qofka ay ka qoslaysi doonto haddii ay taageerayaal Ronaldo runtii ay CR doonaan haddii taageerayaal Messi ay Magic doonaan ama Van Dijk Red Liverpool aniga waxaan leeyahay taageer Ronaldo waxaa leeyahay meesha wax ma yaalo waatay waa arki doonaa mida ku sheega haddii Cristiano Ronaldo uu qaado maxaa ballan qaadaysaa hadda dadka horta ballanqaad horta oo ma jirto haddii macjisaas dhacdo in Ronaldo uu qaado maxaa dareenkaaga sidoo noqon doonta haddii dhacdo leh waxa dheer markaas waxa huwa inaad dhihi doonto jaa-isada waa qiimo beesha isku dheeli ma aha Ronaldo for sure haddii uu qaato uu qalmaa haddii Van Dijk la siiyo sidoo kale uu qalmaa Leo Messi waa ku taageersanahay uu qalmaa haddii la siiyo Messi hadii soo moodo Van Dijk qaaday ani first waxa Cristiano Ronaldo second waxa Van Dijk halka Messi aan geeyo doono kaali saddexaad codanta waxa isku nahay ya kaalinta koowaad gelin lahayd Messi labaad Van Dijk Ronaldo saddexaad okay haddii Messi la waayo kaalinta koowaad yaa gashanaysa Van Dijk iska leh labaadna Messi soo galay okay ani kaalinta koowaad waxa siinaa marka hore Cristiano Ronaldo labaad waxa siinaa Van Dijk halka saddexaad asiino siido haddii oo aan la waayo haddii aan la waayo Cristiano Ronaldo waxa ogolaan lahaa Van Dijk labaad waxa gelinayaa Cristiano Ronaldo halka saddexaad marka la geenayo Messi mar walba saddexaad uu yahay laakiin Messi runtii ajiib waa xil ciyaareedka naftiisa waa laga yaabaa inuu qaado kullee waa arki doonaa maalintaas isniinta iyo sida ay noqon doonto jaa-isada Ballon d'Or 2019 lix aan ka dhigana sanadkan insha Allah kullee cidii lix dhihi doonto iyo cidii oo doonto iyo cidii soo koobay doonto Real Liverpool waa arkayna